السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كلنتي wanaagsan ardayda mar kale muuqaalkan wuxuu la socdaa muuqaal hore oo aan hore soo qaadanay oo noo sameeyay waxa loo yaqaan form, sidoo kale wuxuu noo sameeyay waxa loo yaqaan bootstrap, sida formkaaga loo qurxiyo, sida loo hagaajiyo adigoo isticmaalaysid framework loo yaqaan bootstrap. Ashirkan waxaan ku qaadan doonaa in daatada meeshan la soo geliyaa marka inta lagu dhufto in meeshan lagu soo bandhigo form handle na loo yaqaan in daatada la handle gareeyo. waxaan ku xijin doonaa marka taas sameeyna haduu ilaahay raado sida validation loo sameeyo ayadoo faaruqa meeshan aan looga tagin PHP sida iyo lahayd validation ayaan isticmaali doonaa. si aan u bilaabno muuqaalka si uusan noogu dheeraan ama bobsiinina hore waan u sameysnaa code-keena oo noo qornaa kadibna waxaan qornaynaa oo PHP code laakiin before PHP code waa inaan sameysnaa table sidan oo kale u sameysan headerkiisa. marka ugu horeysa waa inaan sameysanaa table sidan oo kale u sameysan headerkiisa. waxaan haysanaa form, inside our form waxir formkan hoostiisa formkan actionkiisa waa post. It means get and post one lecture aan soo geli doonaa oo theory si aad u fahamto waxa loo yaqaan post wuxuu qabto iyo get waxa uu qabto. inta waxaan ku sameysanaynaa form group. inside our form group waxaan u baahnaa waxa loo yaqaan row. inside our row waxaan u baahnaa waxa loo yaqaan dot row. inside our row waxaan u baahnaa column dash medium 12 column. form group keena waxaan ugu xiriirsan kadib waxaan sameysanaynaa table. inside our table waxaan gashan doonaa waxa loo yaqaan table body, table head. inside our head row. inside our row waxaan gashan doonaa table heading. table heading keena 4 column oo baahnaa times 4 columns. kan koowaad waxaa loo yaqaanaa student ID, kan labaad waxaa loo yaqaanaa student name, kan saddexaad waxaa loo yaqaanaa mother, kan afraad waxaa loo yaqaanaa gender. We have this. If we refresh this page we will get some information. This is we have to make a table. sideen table ugu dhigi karnaa marka ugu horeeya rowgeena weliskiisa waxaan ka dhiganaynaa 75%, marginkiisana waxaan leenahay auto. kadib tablekan waxaan ku darsanaynaa class loo yaqaano equal to table and then table dash small. ugu dambeyn waxaan leenahay weliskiisa 100%. after that this is our table. no data to display wax data lagu soo bandhigin. after this submitting markii badhankaas la dhexgeli rabnaa in information lagu soo bandhigo. sidaas aan sameysano waxaan rabnaa table head kan tag waxaan inaan furno wax loo yaqaano table body, the data of the table. si sahlan si aad ugu furato waxaan leedahay t body waxoogaan sanborsanahay lisayaan soo kacay qabowga. inside our table body waxaan u baahnahay table row. inta aad sidaas dhihin laakiin ka hor key body table bodyga rabaa inaan PHP deeda furto kadibna aan soo aqriyo informationkan waayahay sidee PHP loo furaa qof kastaa wuu yaqaanaa. this is our PHP code. after that you have to close our PHP tag. PHP tagan aan furnayno waxay ka macno tahay inaan sameeyo condition oo ah haddii badhankan la soo dhigo. it means maadaama aan haysano this is our form post button loo yaqaano submit. this is the button called submit. namekiisa waa save. haddii badhankaas submit lasoo sameeyo oo lasoo riixo waxaan leenahay if is set means waxay qaadataa hal baarameter oo ah waxa la jeegaranayo oo submit in badhankaas lasoo riixay cadeynayo. waxaan leenahay $_post. postina waxaan leenahay dib ka sharixi doonaa. it means badhanka ay ku qoran tahay save haddii lasoo riixo
waxaa ii furtaa bracketkan automatically sidiisa igu qad waxay iiga xirtaa qaybtan hoose. intaan waxaan ka furnaynaa loo yaqaano php, kadibna bracketkeena noo xir, kadibna php codekeena noo xir si codekeena usoo xirmo. This bracket will be this. Okay, intaas markaan joogno kadib waxaan samaysanaynaa inaan soo bandhigno informationka aan u baahnayn meeshaan kusoo bandhigno. informationka aan u baahnayn inaan meeshan kusoo bandhigno. waxaan rabaa student name iyo student id in la soo qaado oo rowgeegan la iisoo dhigo. This will end our PHP. meeshaan waxaan ka furan doonaa markaas table bodygiga rowskiisa. how many rows oo baana 4 row baana. waxaan tr side out tr waxaan th times 4 sorry td table data times 4. meeshaan maxamed iyo cabdi iyo cali kusoo bandhigi lahay waxaan kusoo bandhigayaa markii baranka la riixo waxa aniga aan rabo oo keliya. waayahay inta aan ku samaysto marka variables isoo qaadaya xogtan waxaan haystaa haddii aad formkaaga kusoo laabato student id waa input, namekiisa waa id, kan waa name, mother, aan ugu dambeyn gender. waayahay si aan u sameyno waa bobsiinaynaa, waxaan samaysanaynaa $sign student id semicolon $sign student name. This is creation variable horena oo soo qaadan, and $sign mother $sign gender. qiimaan siina marka waxaan leenahay $sign student id is equals to $sign underscore post. wax kastoo post lagu soo qaado formkaas kamid a id the column the id. waxaa isku dayin inaad hilmaamto waxa loo yaqaano semicolon. every statement should be terminated semicolon. $sign underscore post name ugu dambeyn $sign mother is equal to $sign underscore post. this is built-in function. waxaan leenahay mother semicolon $sign gender is equal to $sign underscore post gender. waayahay intaas markaa samaysato kadib inaad variablekan samaysataa waa easy, waa samayn kartaa kadibna qiimaa siin kartaa. tan waxaa loo yaqaanaa creation of variable ama declaration of variable. kan waxaa loo yaqaanaa assignment variable. tan waa ka maarmi kartaa isla waqtiga variableka aad samaynaysid ayaad qiimo siin kartaa. isla waqtiga variableka aad samaynaysid waxaan loo yaqaanaa initialization. variablekeena qiimo waa si hadda isla variableskan armaa inaan soo bandhigno. sidee usoo bandhigaynaa waxaan leenahay php and then for php close tag, kadibna waxaan leenahay echo waxay soo bandhigtaa $sign student id. another tag intaanoo kale noo kobiyey mid walba waxay qaadan doontaa qiimahaas loogu talagalay. would be student name and would be mother ugu dambeyn waxaan noqon doonaa gender. if I hit refresh again, okay, control F5, we need somehow and must 0010 Fatima Ahmed Ali Hawid Allah Awashire Adam. The female would be something like this. I'm showing this information from the user input displayed to the table as dynamically.
if I try again another one, you can take this into another page and showing this information oo qaadi kartaa meel kale waa geyn kartaa si aad usoo bandhigto dowla yaraad waxaa ku xijin doonaa qaybtan maadaama haddii aan badhankan riixo wax i celinaya aysan jirin hadduu meeshan faaruq tahay in la celiyo wadooyin fara badan oo jirta oo la mara ayaa jirta wadooyin fara badan oo la mara way jiraan wadooyinka ugu macquulsan ayaan mari doonaa hadduu ila yiraahdo muuqaalkan si uusan noogu dheeraanin waan iska soo koobaynaa hadduu ila yiraahdo waayahay waxaan ku xijinaynaa validationkeena sababtoo hadda meeshan haddii la riixo wax shaqa oo meeshan ka dhacay malahan waa iska soconayaan sidaas aan u baabiino aan isticmaalina waxaan yaqaana empty function loo yaqaano empty waa maxay wuxuu hubinayaa variableskan haddii ay qiimo ku jiraan qiimaha xaggee keeni doonaan the id the field column name this is the fields name of the fields ee kusoo qaadi doona haddii names fieldskas information lasoo geliyo waxaan leenahay if empty hal parameter qaataa ah qoraalka aad rabtid in la hubiyo textbooks la hubiyo ama meel kale la hubiyo haddaan textbooks koobinaan waxaan leenahay $$post hadda ma variable ay wado variablekii waxaa loo yaqaanaa student id ga hadduu empty student id ga empty yahay message halii soo bandhigo waxaan leenahay echo messagekeyga waxaa rabaa inuu noqdo waxa loo yaqaan alert javascript alert haddii javascript soo qaadato waxbaa fahmi doontaa marka aan rabo inaan javascript message soo bandhigo waxaan isticmaalaya wax loo yaqaano script loo yaqaano tag kadibna isla scriptiga inaan soo xirnayna tag kadib waxaan qornayna alert haddii aad javascript soo qaadato waxaad tusinaa doontaa waxaan leenahay please enter maybe student id after displaying this maraba shaqa kale la qabto in meeshaas lagu joojiyo baan waxaan leenahay exit kadib waxaan leenahay haddii aydan empty $sign student name intaan oo kale masoo kobiyey kaliya waxaan bedelaynaa the message of display please enter student name save then waxaan leenahay if empty mother please enter student mother ugu dambeyn genderka most of them shaqadiisa way iska soconaysaa kadib formkeena waxaan leenahay refresh yes student id cannot show anything waxba lama soo muujinayo if you try again kale mar kale ma laga ogolaan doono sidaas daraadeed waxaa u baahan tahay inaad isticmaasho somehow validation isku way fara badan yihiin midka ugu macquulsan aad isticmaalay after that will be displayed if you try it again cannot be allow you ma lagu ogolaan doono sidaas daraadeed meeshan waxaa ku sameynay cashirkeena koowaad sida form loo design gareeyo adigoo isticmaalaysa wax loo yaqaano bootstrap sida formkaaga data looga handle gareeyo ama looga qaado data in lagu soo bandhigo browserkaaga qaybana dambe waxaan ku qaadan doonaa hadduu la yidhaahdo markaan qaadano mysql in informationkan tableka wax lasoo bandhigaa in databaseka laga soo aqriyo anagoo isticmaalayna fetching rows and fetching columns somehow waxyaabahaas oo dhan anagoo isticmaalayna iyo sql statement intaas aan ku keenana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.